والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan halkan maanta shirkan jaraa'idda aan ku qabanay hotel Rays aan ugu talagalnay inaanu kaga hadalno oo aanu ka sheegno xaqiiqda ka jirta deegaamada ay raggii shalay ka hadlayay saxaafadaha iyo website-yada iyo telefishinadu ay ka dhigayeen dhul lagu muransan yahay oo awdal iyo maroodijo ay ku muransan yihiin annagoo ka jawaabana waxyaabaha ay shalay ku andacoonayeen waxaan u sheeganaa dhammaanba caalamka iyo dadka reer Somalilandba in dhulkani weligiiba jiri jiray dadkuna ay deganaayeen dhulka ay raggaasi ku andacoonayeen dhul ay arkeen maaha waa deegaamo ka tirsan gobolka awdal oo degmada Lughaye ka tirsan oo ilaa 60 ay sheegayaan bal taariikh bayna garanayeen 60 ay sheegayaan haddii la soo qaado meesha ay ahayd waa la garanayaa wax ka tirsanayd sayid ama laga xukumayay intii ka dambeysana deegaanka Lughaye bay ahayd gobolka awdal bay ka tirsanaa waxaanu cadeynaynaa taariikhda ragga ku hadlayay ma garanayaan oo ma xusayaan in laba jeer doorashooyin laga galay intii 60kii ka dambeysay labada jeer ee doorashooyinka laga galayba deegaanadaasi meeshay ahaayeen waa la garanayaa Lughaye ka tirsanayna gobolkan awdal bay ka tirsanaa ragga maanta ku ambabaray ee sheeganaya ee laanta caaw waliba ku daraya sheegaya waxaan leenahay habeen ma jirin habeen ninka waxa ku hadlayo habeen ma jirin habeen ma jirin isku noqo oo odayaashii ka waaweynaa soo weydii waxa kale oo wax run ahaantii laga xishooda in aflagaadooyin ay u tirinayaan oo ay u soo jeediyeen madaxda qaranka madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha waxaan leenahay madaxweyne ku-xigeenku waa madaxweyne ku-xigeenkii qaranka waa Somaliland baa cod boqolkiiba 50 ku dooratay oo uu fadhiya wasiirka arrimaha gudaha waa wasiirkii nabadgelyada waana hawlihiisii waxaanu ku jira waxa wax aad iyo aad looga xumaadaa rag madax dhaqmeedya ah oo reer hor fadhiya inay aflagaadooyin u soo jeediyaan waliul amriga raggii xukumayay iyaga taana waan ka xunnahay annaga afka iyagu ma yaqaano inaanu aflagaadoono cid wax ka sheegno laakiin waxaan leenahay ragga waxaa ku hadlayo isku noqda madax dhaqmeed baad tihiin reeraad hor fadhidiin inaad waxa ku hadashin maahay waxa weyn qarankana in wax laga sheego maaha waxaan leenahay deegaanadu wax jiray weeyi foodad baa laga galay sheekh meesha la yidhaa waxa fadhiya oo ilaa imika nool hayd tuuli ayaa fadhiya oo imikada nool oo 40 sano ka fadhiya iyo ka badan waxa weeyaan waxaanu in xaqiiqda laga hadlo weyn waa in xaqiiqda laga hadlaa haddaan xaqiiqda laga hadal been baa la isku sheegi annagu waxaanu ka hadlanaa xaqiiqda baanu ka hadlanaa waxaanu leenahay deegaankaasi waa deegaan Lughaye ah waa deegaan gobolka awdal ah gobolna gobol laga xukumi maayo waxa kaloo nu sheegaya ragga shalay ku andacoonayay ee dhulkaa ka hadlayay ee annaga iyo ciise wax nooma dhaxeeyaan raggii lahaa waxaan u sheegayaa oo leeyahay horta waa inaad fahantaa dhulku sida uu kala yeesay loo kala degan ninka Hargeysa ku dhashay ee Hargeysa ka soo toosay waxba ka garan maayo cid isxigta iyo cid isku dhinaca waxba garan maayo ciise iyo gadabuursi waa kuwii weligood dhulka wada deganaa iyagaa wada deganaa imagana dhinaca isku haya waxa kaloo doonayaa inaan dareensiiyo dhammaanba caalamka iyo reer Somaliland ilaa dowladda Ingiriiska marka la soo qaado xuduudadu dadka u dhaxeeya qabiil may qaybineen lama sheegin wali xuduud qabiil kala qaybiyay xuduudadu waxay u yaalaan degmooyinkay qaybiyaan oo maamulka dowladda ay qaybiyaan oo cashuuraha lagu kala qaadan jiray ee qabaa'il ma qaybiyaan xuduudadu samaro wuxuu degan yahay ilaa Gabile inuu degan ku yahay haddaan idhaahdo maanta samaroonka Gabile degani
وأوضل بالكور نماذج توصل له وده سمروك قبلي تجن وأوضل ذا سمروك قبلي تجن وده غير قبلي بي وحلا لي قبلي بي دورشك كلام وحربك كلام وين لفهمه ننك عاقلك أما سلطان وإنه فهم سنا دبعته تالو يصير تقول ذكي وحنا نيجو كسوك بكبيني هذا الله ذي دولته وإني شغله قبضتها وإني مارته أن أي مرتا طريق غيري يلا يا ولي الأمر يا حكم كل صاري وإني يا وحولها كل الدجيان وإنه كسورك وسير كلمة قدونا هدي وصاركي أو وحي صو مري هذه أدوك ما سيها قفك مري وبانا وحركة أنا وهذا الكيجي انت هسه كسوك بكبيني وإحنا نقبل حياة 30 سكرة ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتوعلي إن كل هذا كهدي ما يستاهل أن ما كهالك كهدي إن لو جوابه ويسكن نقدينه مركي لقوا إيجي ده كل هذا كهدي بانولا هذلنا إن وحوي ما شاي كهدليان مركا لقى هذلو لما جير باهورت يو دورة شاي كدحضي مر waxay distoorkii 2001 bishii shanaad distoorkii madax cigaal baan noolaa waa kuwa 60kii yiraahdeen 60kii cigaal ayaa ka ogaa bal hal isweydiiyay 60kii cigaal nin ka ogaa cigaal baa madaxweynaha distoorkii baa maaragtaa laga footeeyay waxa weeyaan 60 goobood baa lagu hayaa looga footeeyay xafiisyada yaala waraaqahooga markii 2002 bishii 12 deegaanka looga footay xafiisyada yaalaan waa nimanka wax kala ka soo socda ma aha waxana ka hadlayaan wax kala ka soo socda nin baadeer wuxuu yiri waadiga xabaalaha ay marxaati furee xabaashaadu halkay ku taala sheeg buu samaro dirgax buu ku aasiyay anu ma araga habar jeclo iyo degtaalay ma halkan buu ku aasiyay ana labaan idhaha aniga xabaasheeda sheegatay waa dirgaxe waxa weeyaan waar waxa nimankaas ku hadlayaan wax kale ku hoos jira nin baa nin ku yiri waa ku dhirbaaxi meesid ma waa ku dhirbay waxa ku marmanaa soo dhaba kaagun mahabu caadi bay haystaan waxa weeyaan kibradda hadalka waxa keenay caadi bay haystaan waxa weeyaan dhulbiyoodkii bay haystaan caada Somaliland magaalo dagaalkii sokeeye ku duntay oo dadkii lahaa ma ahina dad kala dhistay oo maanta magaalo caada jirta cidii maaragtaa SN madaxda ka ahayd maanta waa ta qaranka madax ka ah marxaatay ka tahay cid ay ku galeen iyo cid ilahay war meesha waxba ka soo socda waxa kaloon aad ugu tacsiinaya wasiirka dakhiliga waa nin rageed waa nin shaqo yaqaana waxa weeyaan nabur gartaraa ku dhacay shaqadiisii bay yiraahdeen maxaa geeyay tuhum baa ka qabna maxay wariyaa tagi laha ma kuwan hadadlayaa tag ma kuwaas tagi laha wasiirku haduu shaqadiisa tagi waayo oo hadiiba ay moroma ma jira iyaga wadee haduu soo eegi waayaa kale ka hadli laha waxa weey wasiirka dakhiliga iyagu de koota ugu xidhnaan jiray iyagu koota ugu xidhnaa waa ku jaraa'idkooga ku sheegay ila anaga lahaan jirnay imigana waa ku ale nin dhulka yaqaan ma nin anaga ma la geeyay bay leeyahay waxa weey Soomaalidu waxa tiraahdaa bulaa waa afbaxshay waa ku madaxda qaranka caaya jaraa'idadii imiga waa loo nacay madaxda qaranka ay ku yiraahdaan islaama iyo maaragtaa taladooda ay ku socdaan caruur bay taladooda daar walba soo qoraan jaraa'idada imiga dad baa u nacay waxaan leenahay waar dawladnimadu way noo fiican tahay waliba adaa ku dhargay mansab hagaagsan kuma hayo manfac hagaagsanna kuma hayo madaxweyne ku xigeen distoorkii aad qoratay uu qadiyay iyo wasiirro waxay hayaan baanaynu garanayno mansab ku sheegnaa garan laanahay ayaa maaragtaa halkan ay leedahay waxa weeye adaa ku dhargay dawladnimada waa adigaas tuuraya waxaan leeyahay wasiir duur ومهدسية مدحوين وهذا يكسو قاعدين لحدنكي عيدي كاغما دأوينا عيدنا كاغما حقوق السنة
وحوي وهش الجيل عنتاع عباطة nimankaas waa shaqeeyay cunta cabaata waxa weeye hawshoodu nagu ma yara wax kalena way wadaano waan ognahay hadalkun maaha wax yow kale wadaanoon ognahay waxa weeye war nimanka hadii la qaban waayo sida ay u socdaan dawladnimadeena iyo dadnimadeena iyo jaarnimadeena iyo walaalnimadeena way dhimanaysaa waxa weeyaan waa qabiil ballaaran de Sacad Muuse kuwa wanaagsan maxay xagga dambe u joogaan de kuwa xubba caadi naga daadsadayo haba ka daadsadaan bay leeyihiin war ma noqonaysa maanta meel ku sii soconaaba ma jirto alla qabtaan leen waan ka baxay beebsanahay hadaladana qaar ba waxa weeyaan yaani caradoodu waxaan loo oran karin oo wax mas'uul oo yaani nin mas'uuli wax loo oran karin oo nin mas'uul ah saaqolka ka baxay waxaan loo oran karin waa cabdulaahi wax ka celisada aan ku bixinayn wax ka celisada ana doonin ba jirtaa laakiin waxa looga celin nin kula hadlay ka hadliyo nin baa loo oran jiray iska hadlo ina igire horta ku dheeraan maayo dawladdu way garanaysaa rag dalkan iyo dadka meesha imika dawladii dad imika dhulka looga waramayo maahina iyagii baa garanaya iska hadlo ina igire ina yihiin وحلا كسي ديران مايو بلاينا توفي عن بلاية الليلة توفي عن بالليل هذا الكيك أنا وحلا هذا يوم دولته كوا وحبك هذا اللي مايو وحويان مرحدي أنا دولة نوشيء أنت الكوي مكانه إيمانه تدي مكان الشيء هين oo dalku sidoo hay deegaanku sidoo garanayaan waxa halka dhibta ka socota idinka ayay idin taala idinka sixin wuxuu sheekay wixii indigu indiyaala waxana way dhibaatooyin hore oo sidoo looga gamcay laba yaha jiray dalkan yaani la digi jiray oo laba la dhigay marna lagu marmay oo yaani salaadiqda la digi jiray way ogtahay dawladdu دكانك يدرك إذا دكنا ويقطع الدولة كل كاس هم وحشة جنا الدولة هذه يدو واحد يشاور كقبل ويدو سدوا هاي وتوسين ويدو أي وركة جنا كفافين ويدو وحوي وهوري هذا هو هوري أنا إيدي كيس ومهرو حديد كيس ومهرو نبرورا نقول لي هذا دكان هذا نهاية لوهايا نبره هرون هرين بان نقويا لي دولة دان كويجيني وحويان ضدك كأقول لما دايلان هاي عيبين الدولة عيبين الضدك عذر بارك ضدك وحويان وإن تكم جسان واحد قنعية أو سدور هاد نجت وسطان هديك وحويان نكيد دير الورانية نكيد دير الورانية ويسوقيها أنا وأنوجه ذلك إلهي نبوغيها مركان الله هذا الدولة دادي قلنا وذوقت إلهي نبوغيها أنا وأنوجه يا هوشاسي وحي وطالع دولة دا هديك أنا نكيد دير كذا نيان ده إسقى ونكيد دير كذا نيان دير كذا نيان مري السلام عليكم يا سعد موسى عصب سعد موسى عصب إمك هذا إمك وحي كسر ده إمك اللي سود ده مال أي كسر رين ده سعد موسى أبياشية سود قارين يكي سود قارين اللي قرين يي عقال وحول سعد موسى والله يقانا راد كوجي تاريخ نقابة كوجي والله يقانا سلطنوي كوجي معها وحني وليع عصبة إمك ملا الراب كلا سود دعي أو دول عصبنا دون يدي لكن سعد موسى دول كلا جارك عين واسط قرانينا وحنا الله هاي ما هكوي وحنا نروح ينديشي شرك مالك جوبتان بالي دون يعني مدي ود الدقنيه الدرس هذا دنا عسوا هيسي وقلع عصب او مغعن شيطانكم مركو جيكو ددك غلايو بلي هيرك ما غلو
أما قف قليل لليه ما قالوا يسكت دها وعنو مالنا وقالوا جين هو يسكت دها يسعد موسى ما أكون يبانو مالنا على الجريني because ما يرادين لان تعوان جارنا هاي أنا جي عيسى دري سيو توحنا ما يرادين هدول الجين هاي نبغى كده حظ يدك وعلى ديش الشركة إيه يروح حيان حكومة هذا أركي ويدو توانو أركي أنا وكدر دار ورين وحن كدر دار وكدر دار ورين ما إنه حكومة ده وكدر دار ورين ما إنه بدحلو بحجيك زور داخلك بيقصوا على اللي بحيل وما بعنا بالك اللي بيحل هذا هي وما بعنا دقاق بس هو يتارون تقول يجا حكومية marka waxaan leeyahay qolada cusub ee imika soo daada ticirka soo dhacaahay sacad muuse iyo ummadaan dariska iyo abtiga isku ahayn isku dheehaysa anigu waxaan leeyahay ha laga shidaan lahayd Soomaaliland waxa galay jinkii ha laga shidaan leeyahay ma ogida jinkani meel uga yimid agriimaha ka galeen maxabarba meelo kala jid soo galay weeyaan baan leeyahay anigu wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku leeyahay gobolkan awdal khaasatan degmooyinka laga hadlayo oo dhalatay ee halkan ka hadlayay arrimaha isku yimaadeen waa arrimo xasaasi ah sida Suldaan Ibraahim baa sheegay arrimaha harayna burada oo ahaayee dadka taataabanaya ee jiray sida caado kale rag wasiir daakhiliya oo haro jiri jiray baa kala saari waayay dadka ragani hore arkeen bay doonayaan hore u barteen baa meesha iska taalayde ninka ay noo dhaxeeyay ka yimid bari sida xaq ah hadlaaya ma inaan xal dhashay buu noqday madaxweyne ku xigeenku xal u dhashay madaxweynaha kale siiraay xal u dhashay kii dalka haro xukumi jiray dalka ma kala garanayn bay leeyihiin waa nimankan ma iyagu ba dalka yaqaananiyo dal iyagu joogaano yaqaanaan miya mala ummadda kale waa dhagaxan waxa weey nimanka kaligood dalka yaqaano dalka waa la nileeyay waa la nila degan yahay dawladii hore iniga rogay Soomaaliyeed waxa laga rogay halka wartana maalkii baad ka rogaysiinde roga bay noo gambiya aqoon doona waa uu kacan ya waxa weey adeerede kibirka saca ugu dhigtay baastada saca baastada si hadargee atiri markii damana iska daadisay tagtay yarta sheekh adeer wixii baa ku haya ya annagu waxaan iska daadinayno noo yaalayna ma jiro gobolka awdalna weli lama badhisin hadda dagaal diyaar u tahay waan sharciga gacanta ku qaadanayna oo adiga leh hadda tahay lama dhisin awdal oo dilaad arkaysaa wali jingadi ka maqan tahay gobolada aad ka sheekaynayso aqal cadi kama dhisna adeernika bandarada dhaadheer iyo 470 milyan baa ku dhisay warshada macaan ku yiri kookaha ta kale ee badda waxyaalada hayow nabadgelyada keentay waxa ugu dhisaysa nabadgelyada keentay adeer nabadgelyada hadda daadinaysa anigu waxay taala leeg ma dhisan wali waan fadhiyaa waan eegayaa filimka soo daabadee waxa ay sabaan eegnay waan ka baxay salaamu calaykum waraxmatullaahi